هذا السهل اللي يراهدو وكسر شيء قبيلك إساء سوماليلاند ووحو كدودا يا سيدي سوماليلاند لو أوران كرا أرجحيسدي مالجلسة أما أرجحيسدي تاكليسا كدودا يا ما كل يو ونين معمول أهان iyo qabiil ahaanba isdifaacaya laakiin waxaan rabaa aan sahan inaan dhowr su'aalood weydiiyo aadanow sidee iiga dhaadhicinaysaa ama iigu sheegaysaa inaysan Somaliland ama reer Sheekh Saxaad al-shabaabka aysan garab u ahayn ujeedkuna ahayn koonfurta Soomaaliya inaysan degin ama xasilooni helin dhowr su'aalood baan ku weydiinayaa kow waxaad iga jaahil bixisaa qof kasta oo Somaliland wax galkeeda ah abwaana ahaato ama aqoon-yahanna ahaato ama kuwooda diinta ku noqda suufiyaasha oo kale ama diinta ku adag xajirka ku ah oo kale waxay aadaan koonfurta si ay muqdisho ilaa iyo boosaaso aan dhaho ay u soo gubaan ama u qarxiyaan shacabka oo laayaan ama fala argagixis oo sameeyaan waxaad ii sheegtaa waxay ku kala duwan yihiin suuqa muqdisho iyo suuqa hargeysa waxa kala duway ishe oo nagu qanay oo midkaasna gaala iyo jihaadka looga doonto midkaana dialogue looga tago oo aan loo taaban taabal naga jaahilbe waxaad na oranaysaa Somaliland baa waxay leedahay sirdoon iyo mukhaabaraad ka awood badan kuwa gayiga kala Soomaaliyeed ka awood badan oo halkaan falka ma geysan kara miyay leedahay aadana waxa kale oo iga jahil bixisaa 2017 waxaan imid meesha la Hargeysa anoo markaas diyaarad la fly Dubai oo Hargeysa kaliya ka baxda duulimaadkeedu rabayna ka raaco waxaan degay hotel Samira garanaysa waxay garanay hotelkaas waxaan kula kulmay subax 4 saac oo subaxnimo laba nin oo aniga adeeradaya labada saddexaad oo labaduba argagixisay oo waliba rag waaweyn oo saraakiil ah oo markaas dabaqadaha sare u jooga qodaan argagixisada shabaab anu dawladda u shaqeynayay Puntland markaas aad baan u walwalay oo waxaan moodaynaa inaan gacan ku jiro hadaladii la yiri waxa kamid ahaa waxa aad ka shaqaysidii waxaan ka shaqeyno mabaadii bay noo karata laakiin waxa isku naha ka weyna habaqi halkaan waa Hargeysa waxa la waxaad magaalada uga baahatid annaga shafka ku garaacayne masoo hana naga baqi halka office meesha waa Hargeysa waxa iga dhacaysa marka Hargeysa inay ku noolaadaan oo sida shafka igu garaacdaan oo la yiraahdo waxa la wixii dawladda xataa kaga gala annaga ku joogna muqdisho iyo boosaasana aysan ku noolaan karin inta u dhaxaysa ay duurka kaga jiraan ayadana maxaa ku iskreeyay ii sheeg haddaan maamulku aysan baritaarayn argagixisada waxa kaloo aadan sahanow iga jahil bixisaa maxaa loo arki waayay xataa isku day ay isku dayayaan inay amniga Somaliland wax yeelaan inay isku dayaan xataa isku day inay sameyn waayaan maxaa kalifay oo u arki weynay iyadoo la leeyahay fal argagixiso al-shabaab baa lagu qabtay Hargeysa ayagoo rabay inay qarax sameeyaan al-shabaab baa lagu qabtay Hargeysa ayagoo rabay inay wax dilaan al-shabaab baa lagu qabtay Hargeysa ayagoo diyaar ku rooyahay amniga wax u dhimaya maxaa loo arki weynay haddii ba ay jirto mukhaabaraad iyo sirdoon awood leh ciidan awood leh haddii Somaliland la waxa jira aadanow waxyaala aan la iska indhatiri karin salahan inaad argagixisada la shaqaysid ama diyaar ku rooyay alaaqa la leedahay wax kugu ceebino yaanu aniga ayub ahaan waxaan u arkaa dadaal aad dadkaaga u samaysan u arkaa xaqiiqiyan sababtoo ah Mareykan oo dunida waa awood badan argagixisada barbu taageera inta soo ka dhaxarka dantaada inaad ka dhex aragtay ba ay muuqata waxaan garanaynaa sheekhiini weynaa aadan sunni miyuu ahaa maalintii u dambeysay jiilbu ka soo hadlayay
waxaan aragnaa ninkii la oran jiray abwaan gamaadiid abwaanada ugu waaweyn geyiga Soomaaliyeed ahaa jilib buu caaw ku sugan yahay waxaan aragnaa nageey waxaanu aragnaa ninka la yiraahdo ina godanayo rag la waa garanaynaa waxaanu garanaynaa ma tirin karno Ibrahim Afqaan baan garanaynaa ma tirin karno dhammaantood nin inta dhimatayna intay noolaayeen Hargeysa caruurtooda ama dumarkooda dhalayay sanad baa ilmahooda u dhaxayay Hargeysa iyo Burcayna joogay maantana kuwa meesha jooga dumarkoodii iyo xaastoodii waxay tahay la Hargeysa naagahooduna sanad u dhalaa ii sheeg waxa ka dhaxeeya markaas ii sheeg suuqa wahaan iyo soobe waxay ku kala duwan yihiin ii sheeg oo midna loogu jihaadayo midna aan loo taabanayn doodda macquula way aqal gala si akademiya u doodaysa laakiin haddana qodobada aan rabno in la taabto bal noo taabo qodobadaas intaas qodob waan ku maxay tahay waxa kala duway shacabka ku wada nool suuqa wahaan ee Hargeysa iyo suuqa diyaal ku raya soobe oo midna in taraay qaraxa loo gelinayay midna aan waliba loo fiirin labo haddii Somaliland mukhaabaraad leedahay ama ciidamo sirdoon ama ciidan military ama mid booliis ba ay leedahay iska qabta waxa maxaa noo arki weynay Somaliland oo fashilisay fal argagixiso ee ku soo socday Somaliland ku soo socday maxaa arki weyn labo saddex maxay tahay diyaal ku idmahayo madaxda iyo dadka ashaab dad caama noqota dad badan oo diyaal ku rayaan bulshada baabi'iya umada kale hadda sida koonfurta kale waxa ka mid noqda kuwa isqarxinayo kale kuwa caamada kuwa diinta khiyaaliga loo sheegay kuwa laga dhaadhiciyay waxaan jirin baas qarxiya laakiin Hargeysa markii la joogo dadka elite baan ku leeyahay waa aqoon-yahanka waa abwaanada waa dadka caanka ah elite aqoon-yahanada wax bartay ee aan dhihi karin aqoon waxa u geysay ayaa Hargeysa ka tago jilib taga maxay jihaadka Hargeysa uga bilaabi waayay maxay isqarxinta Hargeysa uga bilaabi waayay maxay alla ka cabsiga iyo adii diin jirta uga bilaabi waayay taas ba anaga noo cadaynaysa in cilaaqaad ka dhaxeeyo cilaaqaadkaas ku salaysan nabdi isku salaysan yahay inta aanu aqoonsi helayno hanaga tajoojinina qaraxa iyo dibindaabyada koonfureed sababtoo ah haddii koonfureed fariisato oo sal hesho oo dawlad hesho Somaliland cid ictiraaf mayso adduunkuna wuxuu oranayaa orda dadkiina raaca haddii laakiin ay saa u sii gubanayso waxaan ku doodi karnaa adduunkula doodi karnaa waddankan ummadaan israaci mayso waa gubanaysaa mana sugi karno in aqoonsado taasaan qabnaa isaa nooga jahilbi adoo mahadsan kaga mahadcelinaya dadda maalgalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.